السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. walaalayaal, ilaahay baan u mahadnaqaynaa inoo ogolaaday inaan dhagaheena u soo raaricna maaragtaanay maqalka ilaahay hadalkiisa iyo hadalka nebigeena laynoo sheegayo calayhi salaatu wasalaam. dhegta wax maqlaysa laba mid unbay noqotaa: dheg laab u daloosha iyo dheg leydh u daloosha. dheg maqasha, taas midigtana ka maqasha, ta bidixdana ka sii daysa. dhegna waxa weeyaan waa dheg laabta u daloosha. waa tanuu ilaahay uu yidhi: wataciyahaa udunun waaciya. waxaa waana qaadanaysa oo naseexada kuwaan toobaysatii ilaahay casa wajalla ugu talagalay unbaa kuwaan toobaysa. marka maqalkeena maqalkii laabta u daloolay allaha ka dhigo. aamiin dhahaada insha allah. maqalkii qalbiga ku daloolay allaha ka dhigo. waxaan u malaynayaa waa maalintii saddexaad walaalaheen ay noogu talagaleen in laynagala hadlo diin oo diin aan maqallo. dad badan baa khayrka inay maqlaan aanan karaynin, walaakiin ilaahay casa wajalla inteennan buu inoo qadaray inaan hadalkaa dhagaysanno, iyo dad badanoo iyakuna aalaadkan iyakuna ka daawanaya ama ka dhagaysanaya. diinka hadalkeegu zamankan uu badan yahay, dhagaysigeeguna uu badan yahay, laakiin fahmigii baa inaga maqan. laysa alcilmu maa xufid wa inama alcilmu maa nafac. cilmigu inta la weelayo ee la xifdiya maaha. cilmi waxaa la yidhahdaa waa cilmiga qofka isaga anfacee waxtaraa cilmi la yidhaahdaa. waa farqiga innaka muslimiinta zamankeennan joogta iyo zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, ama quruuntii la odhan jiray quruun almufadala, qarniyadii wanaagsanaa. farqiga inoo dhexeeya waa intaas. innakuna waan maqlaynaa, laakiin ku dhaqankii baa inaga maqan. caaisha radiallaahu canha waxay tidhi, cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, waxyigu markuu nabigeenna uu ku soo dego dushiisa, intaa aan nebiga aan ka maqalay, markii aan la imanno, hadday macruuf tahayna aan la imanno, hadday munkar ay tahayna aan ka joogsanno, umana gudbi jirin bay tiri markaa in kale inaan qaadanno. 10 aayadood hadday soo degtay buu yidhi cabdulaahi bni mascuud, 10kaa markaan maqallo, waxay wanaageenna amrayaanna aan la imanno, waxay xumaanaya munkaray naga reebayaanna aan ka reebtoonaanno, ayaan inta kalena markaa u gudbi jirnay bay dhahdeen asxaabtu. allah raalli ka noqdee. hadba inta ummaddu ay diinta shareecadda qaadi karaysa ayaa loo soo dejinayay. marka innaka zamankeennan maqalku waa badan yahay, ka hadalka diinta laga hadlaya waa fara badan yahay, laakiin isbeddelku muu yar yahay mise wuu badan yahay? ya, waa calaamatu su-aale, bal ka jawaaba. waa yar yahay soo maaha? ka hadalku waa badan yahay oo wadaadadu way xiiqeen.
maqalkuna ma yaro dad fara badan way maqlaan oo way dhageystaan xataa kuwa maalin qayilaya baan arko muxaadara ay u daaran tahay way qayilayaan sigaarna way cabayaan jaadkiina way cunayaan muxaadara u daaran markaasay yidhaahdeen markaasaan ku yidhi maasha allah asalaamu calaykum calaykum asbal warrama waa khayr markaas adiyo sheekh kalaan ku taageernaa bay igu yidhaahdeen sheekh mustafa ay markaa sheegeen markaasaan ku yidhi waad fiican tihiine sibay dhaantaayo heesii qaaciga dhegaysanayseen sidanaa dhaantaa laakiin waxa culammadu ay u hadlayaan ee laynii baraarujinayo waa isbeddel inaad keentaan baa la doonayaa isbeddel ummaddu hadday iyadu isbedisho xaaladda adagay ku jirtana ilaahay isagaa ka saari markaa ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ummad sida ay tahay ilaahay kama dooriyo hadday nicmada haysata nicmadda ilaahay kama qaado hadday barwaaqo ku sugan tahayna barwaaqada ilaahay kama qaado ilaa iyakoo dunuubta ay geysteen nicmadda iskaga zuuliyo iskaga qaada mooyaane dad badan baa laga yaabaa inay yidhahdaan ilaahay baa sida noo gartay may ilaahay ha eedayn wixii wanaaga ilaahay u nisbee wixii sharcina adiga naftaada u nisbee wixii wanaaga eed la kulanta ilaahay baa ku siiyey haddaad nabad hesha nabadda ilaahay baa ku siiyey haddaad barwaaqo haysata barwaaqada ilaahay baa ku siiyey haddaad caafimaad haysata caafimaadka ilaahay baa ku siiyey wixii barwaaqo iyo badhaadhaa ilaahay baa loo nisbeeyaa wixii shar noloshaada aad ka aragtana naftaada u nisbee waa camalkaagii wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir baa ilaahay yidhi waxaad masiibo aad la kulantaan ee adduunka intaad joogtaan idin soo mara baa ilaahayna leeyahay waa waxay gacmihiinnu aad ku geysateen baa ilaahay yidhi weliba sidaasaan inta badan waan cafinaa baa ilaahay yidhi dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas waxaa maanta adduunyada dhibaato ka dhacayo oo dhan fasaad iyo dulmi iyo dagaal iyo abaar iyo colaad iyo cabsi maaha waxay xayawaanka kale ay kasbadeen maaha innakaa kasbannay waa wax innaku aan geysanin waa waxay bini aadanku ay kasbadeen weeyaan lidaalika qofka muuminka markuu adduunyada ka dhintu ka baxo waa loo murugooda ayaa u murugooda khalqiga ilaahay abuuray oo dhan baa ka naxa dhimashada qofka muuminka la yidhi oo maxay uga naxayaan way ka murugoonayaan maxay uga murugoonayaan baa la yidhi waxay uga murugoonayaan maadaamuu muumin yahay uu qofkani ilaahay caabudayay oo camal wanaagsanna uu ka shaqaynayay uu salaada ku dadaalayay uu diintiisa ku dhaqmayay camalkaa wanaagsan uu samaynaya samada khayr buu ka soo dhaadhicinayay iimaanka iyo taqwada uu lahaabaa samada barakada ka keenaysay lidaalika dhimashada muuminka makhluuq oo dhan baa ka noxoo ka murugooda mustariixun wa mustaraaxun mid waa laga raaxaysan baa la yidhi midna waa looga raaxeeyay nolosha adduunka isaga qofka iimaankale markuu dhimanayo tacabkii adduunyada waa looga raaxeeyey gaalku marka uu dhimanayo ama mujrimku markuu dhintana isagana makhluuqii oo dhan baa ka raaxaysto waa laga raaxaystay fircoon markii ilaahay uu ka warramaya halaagiisa waa kii lahaa famaa bakat calayhim alsamaa'u waalard wamaa kaanuu mundariin baa ilaahay yidhi fircoon iyo ciidankiisa samadana loogama ooyin dhulkana loogama ooyin waayo maadaamuu nin gaala ahaayo tuqyaan badnaayo kibir badnaayo qooq badnaa camalkaa xun uu samaynayay adduunyada dhib buu ku hayay markaa dhimashadiisii cidna kama ooyin baa ilaahay yidhi amaa muuminka waa loo ooyaa qofka muuminka waa loo ooyaa sidaa darteed dunuubta dadku ay samaynayaan baa dhibaatada ay ku sugan yihiinna soo jiidaysoo keenaysa laa taqacu lmusiibatu ila bidanbin
ولا ترفع إلا بالتوبة بعلمة ولادين مصيبة أمتكم مدعضو إلا الذنب يكو أي قلب سدين بمصيبة داسي أي كل عضي أمد إلهي بلايا هايستا كما فيدين إلا توبت با إلهي أمدك قفيدا توبت إن توبت كنان التوبة ومحي إنو قفك إلهي أصور نقضو ذنبك كجر إنو كسر نحبحو إنو إلهي أصور نقضو ذنب داف إلهي ويديستو مركو قفك إلهي أصور نقضو توبت كانو أيا قفك إلهي نولشي سوها جنيا إمام الشافعي رحمه الله أيا أركنين مل فرديو آدو مروغيسن مركابو أتغو الله فريستن ننكي uu wareystay markaa wuxuu yidhi waa maxay dhibaatada adiga ku haysata murug baa kaa muuqatee masiiba igu dhacday buuhi nin masiiba ku dhacday baan ahay buuhi oon dhibsanahay wuxuu yidhi dadkaba masiibadu way ku dhacdee waa maxay ta adiga kuu gaarkii wuxuu yidhi aniga tu gaara igu dhacdo haysato dadka kale waan ka duwanahay buu yidhi masiibada maxay tahay adiga kuu gaarkii wuxuu yidhi dadkii iyo aniga ayaa kala baxnay buu yidhi oo cid aan la heshiisahay ma jirto hooyaday aabbahay waan kala dhaqaaqnay reerkaygii oo ilmahayga waan kala dhaqaaqnay jaarkaygii waan kala dhaqaaqnay qaraabadaydii waan kala dhaqaaqnay cid aan la heshiisahay haba yaraatee ma jirta buu ku yidhi marka culammadu firaaso wax la yidhaa bay lahaayeen ittaquu firaasata almu'min fainahu yara binuuri illaahi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muuminku wuxuu leeyahay nuur qalbigiisa uu wax ku arkuu leeyahe iska ilaaliya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam imaamkii wuxuu gartay ninkani in xagga ilaahay ee isaga xidhiidh uu ka go'an yahay buu gartay hal su'aalu markaa weydiiyey uu mashkiladiisii oo dhan ku xalliyey waa maxay su'aashaasi wuxuu ku yidhi waryaa i dhegayso 100 qof inaad hal mar raalli gelisaa iyo qof keliya inaad raalli gelisaa bal kala dooro kala sheeg markaasuu ku yidhi dee midka keliya ila fudud waxaa markaa baa lagu yidhi waliba midka keliya hadduu adiga raalli kaa noqdo ood isaga raalli gelisid 100ka kale isagaa kaa raalli gelin baa lagu yidhi markaasuu yidhi midkaasi waa midkee buu yidho markaasuu yidhi waa allah weeyaan markaasuu ninkii wuxuu yidhi sheekh wallaahi meesha leega haystaad ii sheegtay buu ku yidhi nolosha aan fahmi lahaa iyo cidhiidhiga aan dareemayey iyo muqaatacada dadku ay igooyeen oo dhan waxa u sababa waad ii tilmaamtee aniga iyo rabbigay xidhiidhkii naga dhexeeyay baa meesha jirin buu yidhi jazaaka allaha khayr buuhi marka halkii buu ninka ku toobad keenay haddaan doonayna inaan ka baxno dulliga iyo ciriiriga iyo dawarsiga waad ogtihiin dadkeennu dawarsi bay ku jiraan maanta soomaali haddaan nahay dad adiga dadnimadaada kaa hooseeya maanta wax ku yeedhinaya oo ku maamulaya oo ku talinaya waana min calaamaati saaca nabigeennaa sheegay sala allahu calayhi wasalam ida tukhida alfayu duwala waalamaanatu maqnama waalzakaatu maqrama وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأقصى أباه وأدنى صديقه وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم إلى آخر الحديث شن يتبخص لضب نبي حديثك أو كشيء ويرى أمد إذا شن يتبنك على ممركة كأركتان بلا يدا أمد إذا كل عدي وقاد أبو نبي عليه الصلاة والسلام إن يربان كتابا إن كسو وقت نقوك وبينهي وحاو نبي قول الدول وحال إلى وحنتida guud ee ummaddu ay leedahay dad gaara markay danahooga u isticmaalaan kii amaana loo dhiibtayna amaanada dad u dhiibtay inuu markaa qaniimo u timid intuu iska arko iska isticmaalo kii zakada dhiibayayna sida dayn lagu leeyahay markuu zakada u dhiibo waxaan diinahayna dadku markay bartaan waxa uu nabigu sheegu yidhi iyo marka uu ninku haweenaydiisa u adeeco hooyadiisii dhashayna uu iska dheerayo caaq ku noqdo waalidinkaar uu ku noqdo xaaskiisana uu dhaga nuglaan hadalkeega iyo amarkeega hooyadiisii dhashayna maaragtaana idhaaf buu odhanayaa aabihiisii dhalena uu iska dheerayn buu nebigu yidhi saaxiibkiisana uu soo dhowayn wa kaana zaciima alqowmi ardaluhum qowm walba markuu hoggaanka u qabto kooga ugu liita buu nebigu yidhi ugu liita وساد القبيلة فاسقهم قبيل قوم ودتك أفكل يكون هذا وما أرسلنا من رسول
إلا بلسان قومه إلهي بقرآن كإنه أقول شيء قوم معناه وحويان وعدتك اللغة كلية كوضا الله قوم والبمركوه قام يبو نبي يقول ليتا وكان وساد القبيلة فاسقهم قبيل كنا ويركي ويان وجفدي هوسي أيكون مركة ثلاثة أوديبتان كوغا إلهي كفوق بلا عبادة بلا تقوى وحاصل دم النبي الشيء نوتري ومن علامات ساعة النبي عليه الصلاة والسلام ummad cidhiidhiga iyo dulliga iyo dawarsi kama baxayso ilaa ilaahay u soo noqoto mooyaane camalkeennan badilaynaa nolosheena ilaahay isagaa badili markaas waa cuquubo caaba muslimiinta oo dhan haysata maanta cuquubo caama weeyaan oo muslimiinta caam ahaan oo dhan ku dhacdo ku habsatay markii kitaabka ilaahay jalla wa ala laga tagay ee sunnadii nabi maxamedna laga tagay ayaa cuqubadaas nagu dhacday maanta وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورحض النبي محمد يريب إلهي نوغش في سورة الفرقان إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب قوم كيجي وريركي نبي محمد وكرنا شيء ويا قوم جيس وعرب وحي كيشن كتابك إله جاس dhaqan kiisii bay ka hijroodeen barashadiisii bay ka hijroodeen isku xukunkiisii bay ka hijroodeen ka shaqayntiisii bay ka hijroodeen kii quraanka baranayna waa wad aad bay yiraahdeen macallinkii ilmaha quraanka u dhigayayna waxa lagu yiri macallin ciyaalka maxaad bartaa adu quraan yar uun baad bartaaye hooyo ardaygii markuu bisha lacagtii uu dhiibi waayay madrasada ayuu macallinkii dhowr jeer buu celiyay markaas islaantii aad u careysan baa soo qabatay ilmahayga gacanta u timid macallinkii macallin ilmaha yar waad soo celcelisay maxaa u soo celcelinaysaa maxaa ka qaldan markaas waxba igama qaldano lacagta ha bixiyo meeshan aan ku jiro waa kira weeyaan leyrkani waa lacag weeyaan macallinkani waa dad reer uu ka mas'uuliya dhagax iyo geed maaha wuxuu reerkiisa siiyuu rabaa markaa bay ku tiri macallin waaba isxariifinaysaa maxaad u dhigtaa bay tiri quraan yar baad u dhigtaaye quraan yar adi waa kula yar yahay quraanku laakiin u fiirso xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam almaahiru bilqur'aan maca asafarati alkiraam albarara ardayga ama ninka sheekha ama gabadha saalixadda ee quraanka taqaana ee xuquuqdiisa iyo xuruuftiisa ilaalinaysa ku baratay ku xafiday maalinka qiyaamaha bini aadanka la soo bixi mayso waxa uu nabigu sheegay malaa'ikta inuu qofkaasi la soo bixi doono malaa'ikta quraanka u qaabilsan ee quraanka xafidsan ee cibaadada ilaahay ay ugu dhawaadaan ay tahay quraan ay qofka quraanka yaqaan uu la soo bixi doona marka ihaanada maanta muslimiinta caam ahaan haysata inaka halka isdhignay kaliya waxa la rabaa in umada laga helo tawba inaan ilaahay u soo noqono toobad keeno bani aadam baan naho dambi way naga dhacaya laakiin ha quusan rahmada ilaahay ka quusan hadad adigu aatahay ilaahay ba fi surati ibrahim ba ilaahay ku yiri وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وفي سورة إبراهيم بلغوا شيئا في سورة النحل إلهي وحوكوا شيئا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن الله لغفور رحيم صدقنا آيات وحيد بان جعلها والله بقى آيات حق يظهر آيات واسكو معنى ويان لكن حق الدنب الله بدا آيات معنى كلا دوون بيشيئا آيات سورة إبراهيم بان أرتز دول تاقي إلهي بايدي وآتاكم من كل ما سألتموه وحي آدي ويديستين إن يدكو قبتين إذ جعليدين إن نفتينو أي دونيسي أما عربك كشاكتو إنكو قرتا وإلهو نسيد هذا أما إلهي إني أبو ريبا إني يقانا وحي إني ونكسنه وإلهي وإني سيي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
haddaad isku daydaan ilaahay nicmadiisa tira inaad ku soo koobtaanna ma koobi karaysaan baa ilaahay yidhi ina alinsaana la daluumun kafaar insaanku waa mid dulmi geysta badan kafaar weeyaanoo weliba waa mid nicmadda ilaahay inkiray oo nicmadda ilaahay qariyey daluum baa tahay daluum dulmi geyste mid dulmigiisu badan yahay mar keliya maa waxaa dulmi samaynayno marar badan baan dulmi geysanaynaa allihiinna abuuray baan dulminay oo nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam xaqiisii baan dulminay oo xuquuqdii waalidku lahayd baan meel kaga dhacnay oo xaqii qaraabadeenna waan ku gafnay oo xaqii reeraheenna iyo carruurteenna waan ku gafnay oo xaqii jaarkeenna waan ku gafnay mar walba waxaan nahay kuwo gafaya baan nahay marka adigu waxaa tahay mid dulmi geysta badan oo kafaara oo ilaahay nicmaduu ku siiyeyna qariyey oo daboolay baa tahay aayaddaasi xagga hore waa sida xagga dambana waa sida aayadda ku taalla fii suurati annaxli ilaahay waa kii lahaa wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ina allaha lagafuurun raxiim haddaad ilaahay nicmadiisa aad isku daydaan inaad tiro ku soo koobtaan baa ilaahay yidhi ma soo koobi karaysaan ilaahay rabbigiinnuna waxa weeyaan waa mid dhaafid badan oo naxariis badan baa la yidhi rabbigiinnu waa mid dhaafid badan dembi kastood gashaan haddaad ka soo noqotaan dembigiinna ilaahay wuu dhaafayaa waa mid naxariis badanoo si kastood naxariistiisa uga quusataan ilaahay jalla wacalaa waa idiin naxariisanayaa waxaad ogaataa addoonkanoo weyaan macnuhu haddaad adigu aad tahay kii dulmi geystaha badnaa kii daalimka ahaa ee kafuurka ahaa haddaad adigu aad tahay ha quusan buu ilaahay ku leeyahay anigoo rabbigaagiya waxaan ahay ghafuurun raxiim baan ahay mid dhaafid badan oo naxariis badan baan ahay ii soo noqo baa ilaahay ku leeyahay يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة حديث القدس با إلهي كليها إن آذنو مربع داد أدقو أنيق آدي بريسو أودي رجينيسد أود وجه دولك إيديسد أودي بريسد دنبقى دونتد إن دنبقى آدقش إنتو دونا بحاليك هذا وانكو دافيا با إلهي عد أنواع بياليون وجوسن يعني مجرت با إلهي دين cid odhanaysa yaa rabbi addoonkan waa dembiile maxaa dembigiisa u dhaaftay odhanaysa ma jirto haddaad marba adigu aad muslim tahay ood muumin aad tahay oo ilaahay keligii aad baryaysid keligiina aad rajaynaysid dembiga kaa dhaca intuu doonay ha leekaadee haddaad ka soo noqoto dembiga oo shuruuddii towbadda lagaa helo ilaahay waxau ku leeyahy dembigaa waan dhaafayaa low balaqat dunuubuka canaana asamaa haddii dembigaagu uu gaadho fadka samada ood istikfaar aad iga dalabto waan dhaafi baa ilaahay ku yidhi low aataytanii maalinka qiyaamaha arlada muggeedoo gafa adigoo wata haddaad ii timaaddo laakiin bishardi aad iigu timaaddo adoo ii soo shariig yeelin gafkaa aad la timida in la egoo dembi dhaafaa kuula iman baa ilaahay ku yidhi shardi waa maxay waa inaad tahay shakhsi muwaxidoo ilaahay rumaysan marka ilaahay naxariistiisa ka quusan mayno ورحمتي وسعت كل شيء dadka hanu ugu yeedhan naxariista ilaahay xadiis ku yaala saxiixaynka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxaanu noo soo qabanayaa ummadihii naga horreeyay gefka ay galeen ilaahay naxariistiisa wuscadeeda isagoo nebigu inoo tilmaamaya ayuu nebigu inoogu sheegay ninkii reer bani israa'iil ahaayee boqolka naf gooyey ee weydiiye dadka ku yidhi war caalim nin caalima ii tilmaama markaasaa nin caalima markii dambe loo tilmaamay ninkii caalimka ayuu u yimid oo wuxuu ku yidhi taayib baan ahay boqol nafna waan qabaa dhiiggoodiiye toobad miyaan leedahay haa toobad waad leedahay buu ku yidhi toobad waad leedahay laakiin shuruud buu ku xidho waxa uu ku yidhi shuruuddaasi waa sharcun liman qablanaa bay culammadu yidhaahdeen waxaa shuruudda ka mida toobaddaada in lagaa aqbalo meeshan aad joogto waa meel dad xun baa ku nool oo dagaal badan oo dhib badan oo dad dhiigga daadiyo ku badan ayaa ku noole ka dhexbax buu yidhi dadkan iyo dalkan ka guur xaggeed u guuraysaa
dhulkaas dad wanaagsan baa ku nool dadka ilaahay la soo caabud buu ku yidhi meel dad wanaagsan ku nool yihiin tag oo irtixaalay markaa ninkii safarkii buu gudagalay isagoo weli meeshii u socdo u hijroonaya aanan gaadhin ayay geeridiisii timiday naftii markay ka dhacday malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul raxma isku qabatay malaa'ikatul raxma waxay leeyihiin addoonkan uu toobad keenayo ruuxdiisa annaka qabanayno qaadayna bay leeyihiin malaa'ikatul cadaabna waxay leeyihiin may addoonkani 100 naf buu qabaa waa dhagar qabe weeyaan cadaab baa loo qaadayaa keena markaasaa ilaahay soo diray malag suurad aadamiya loo soo yeelo lagu yidhi arlada dembiga uu ku galay iyo arladuu rabay inuu u hijroodo mitiri baa lagu yidhi u mitiri taw xaggeega u bata dadkayga ku dara baa lagu yidhi markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa casiiz waa kariim waa raxiim waa raxmaan fii bacdi alriwaayaat waxauu nebigu sheegay dhulkuu u socday baa ilaahay u waxyooduu ku yidhi addoonkaygaa naar inuu iga gala ma jecliyo u dhowow baa ilaahay kuhi u dhowow intaa in laag bay dheeraatay buu nebigu yidhi shibr deedna malaa'igtii naxariista la wareegto sidaasuu addoonkii naxariista ilaahay ku mutaystay xadiiskaas waxauu nebigu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa maxay ha quusan weeyaan naxariista ilaahay ha ka quusan soo noqo in taabuu ilaya fa ana xabiibuhum أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب والمعائب لأظهرهم من الذنوب والمعائب إلهي بحديث القدس وحو كيري حدي أضومها يقول أنك إيسو نقدانا كسو نقدا كيجعل بانا هيبا إلهي كو استهيريا ee tahaarada qaadanaya ee dunuubta iska meydhaya iyo kuwa ilaahay u soo noqday dembiga ka toobad keenay labadaaba waan jecelahay baa ilaahay yidhi fa in lam yatuubuu ilaya hadday aniga addoommahaygu ii soo noqoni waayaan oo ay toobad keeni waayaanna hee fa ana tabiibuhum ma daynaye waan dawaysanayaa buu ilaahay yidhi addoonkayga oo maxaan ku dawaysan balaayo iyo masiibo ayaa ku keenayaa si dunuubta iyo macaayibta iyo nuqsaantooda aan uga maydho ay u gartaan rabbi inay leeyihiin dadna u soo noqdaan baan u keeni balaayo baa ilaahay yidhi dalka innagu aan ka soo jeedno haddaan Soomaali nahay waxaad ogtihiin 5tii sanaba masiibo magac kala huwan baa soo maraysa hadda maalmaha ay dhaweyto daadad baa qaaday ummado dhan oo dal dhan baabiyey oo beero dhan baabiyey oo intaasoo bashar ay ku dhimatay oo intaasoo xoolana ay ku halaagsameen masiibo 5tii sanaba masiibo magac kale la huwiyey ayaa ilaahay nagu soo diraya waa maxay waxa ubtaliihim bilmasaa'ib ilaahay baa inagu leh addoommahayga waan jecelahayo maadaama 100% muslimiin yihiin oo muwaxidiin ay yihiin waxaan balaayadii masiibada ugu keenayaa wax kale ma aha dembigay galeen baan rabaa inay ka soo noqdaan baa ilaahay leeyahay laakiin dadkeennu weli ma toobad keenin ما توبت كينين إن توبت كينين وحا دليلا مصيبة دي ودك كبر بري إلهي مكرمع دي ويتالله قارنا ويهورنا يانا وحي كهوريان انت بدن وحن لنا هذا السوشيال ميديا كهورنا يانا وحيابها دونينا إنا كتوبت كينا قبيالة كاملة haddaan qabyaalada ka toobad keenno albaaba badan oo inagu furan oo cuquba ayaa ilaahay naga daboolaya waa inaan ka kacna qabyaalada kor uga baxnaa oo u baxnaa al-islaamiyya anagu muslimiin baan nahay ilaahay dad muslimiin uu naga dhigay dal 100% muslim ilaahay nagu abuuray dal 100% dadka ku nool isku madhab yihiin baa ilaahay nagu abuuray dad qoys kaliya ilaahay naga dhigay وإن توبت كنا ومدى أن وجدنا وإن ومدى توبت وجدنا التوبة نبي هود عليه السلام قوم عاد بالله الرعد وقوم كبي هاين وقوم كيري من أشد منا قوة أي نجحوك بدن بيدادين قوم عاد أي نجحوك بدن إلهي قوة بوسي قوم كقوة المهوج الشنجر كابع علماء ويراد الشنجر كا أي دوغا بغلي تقعد سيد المهن ورجيو وعيارو ayaa geedka timirta ilmahooga shanjirka intuu u qaado sida u tuur jiray baa la yidhi hadduu ilmahooga shanjirku intaan la ekaa kooga 30 jirku markaa intee buu la ekaa
ويدعون القوة ويقولون من أشد منا قوة أيا أنك نقحوك بدن بإليهن أيا نقحوك وين ولكن نبي هود عليه السلام مركو يمد وحو كيري ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم تلك يوم ولبا قبيل رير كيسا استغن الله دري قوم كيسا الله دري مركاسو كيري استغفروا ربكم ربكين دم داف ويديستا ثم توبوا إليه دنبقات كجرتانا كدح بحا وحق ربكين أصو النقضة هداد إلهي اللبدا صفة هداد إلهي أولسو النقطان هداد استغفار نتمادان قال لماذا أتكسو دح بحدان ذنوبتا ووين دنبقا ووين وحوين الإشراك بالله وإلهي الله شريك يلو قال لماذا أتكون جرتان يوحي قال لماذا أي وضطو دنا كسو دح بحا أو توبت كينا محاد مركا هليسان يرسل السماء عليكم مدرارا إلهي السماء وحو نيغا كينا يا روب dhibiciya waaweyn baa samada layniiga keeni dhulkana barakaad iniiga soo saaraya ma intaa keliya may wayazidkum quwwatan ilaa quwwatikum awoodda aad sheeganaysaana layniga qaadi maayo diinta islaamku waxba kaa qaadi mayso waxay kugu darta mooyaane islaamnimadu waxaad adigu haysatid way ku kordhin quwaddii jirka haddaad haysataan quwaddii caqliga layniigu dari quwadda cilmiga layniigu dari quwadda caafimaadka layniigu dari quwadda maaragtaan baraka cimrigiina laynii gelin quwaddii iimaaniga iyo caqiidada ilaahay niigu dari quwadda aad sheeganaysaan diinta islaamku inagama naaqusayso inagama dhibayso bal quwadda quwad kalay diinta islaamku iniigu daraysa islaamnimada dad badan baa maanta ka baqaya ha ka biqin diinta islaamka waxay kuu kordhisa mooyaane waxba kaa dhimi mayso cadiy bnu xaatim aلطaa'i radia allahu canhu saxaabigii la odhan jiray ayuu nebigu diinta islaamka u bandhigay wuxuu arkay isagoo ka jejeesanaya markaabuu nebigu u yidhi yaa cadiy kaalay buu ku yidhi soo fadhiiso islaamnimadayda diinta ilaahay aniga ii soo dhiibay inaad igu soo raacdo ood islaamto saddex arrimood baa kaa hortaagan buuhi waana kuu sheegi buu ku yidhi dhegayso waa bilikhtisaar saddex arrimood ayaa sabab u ah inaad diintayda aad ka istaagtoonaad soo gelin arrinka koobaad waxaad isleedahay dadka nebi maxamed raacay calayhi salaatu wasalaam waa dadkii ducafada dadka ugu liitay ayaad isleedahay arrinka labaad waxaad arkaysaa asxaabtaydu inay yihiin dad fuqaraaya oo masaakiin oo awood aanan haysan dhaqaalena aanan haysan ta saddexaad waxaad arkaysaa nabad ma haystaan baad leedahoo meel walba dagaal iyo maaragtaane colaad baa kaga soo socota laakiin cadiy waxau nebigu yidhi saddex arrimood si fiican iga dhegayso waxaad isleedahay waa fuqaraa dhaqaale ma haystaan waxaa iman doonta buu nebigu yidhi waxaa dhici doonta zakaatalmaalka marka la soo ururiyo qof miskiinoo baahanba in laga waayo wadannada islaamka oo dhan qof miskiinoo baahan maanta muslimiintana dowladaha islaamka dawarsanaya zakaatalmaalka marka la soo qaada buu nebigu ku yidhi qof baahan oo miskiina oo zakada yidhaahda anaa u baahanay isiiya xilli baa soo socota la waayi doona buu ku yidhi waad arkaysaa buu yidhi asxaabtaydu inay maanta cabsi dhinac walba cadow baa soo ka taagan soo uma jeedid haa waxaa dhici doonta buu nebigu ku yidhi layuftaxanna buu nebigu yidhi hee kunuuzu kisra bin hurmuz kisra waa malik faris boqorkii faris khasaa'intiisa dahabka ee boqortooyada 5,000 oo sano shaqaynaysay ay kala dhaxlayeen khasaa'inta dahabka ee boqorrada ku fadhiyaan rag asxaabtayda ka mid ah sidaa u soo furi doona buu nebigu ku yidhi cadiy bnu xaatim nin wuxuu ahaa madaxda yaqaana oo madaxda mar walba raggii u tegi jiray buu ka mid ahaa markaa buu yidhi kisra bin hurmuz markaa buu nebigu ku yidhi haa kisra bin hurmuz si fiican dhegtaada u geli buu yidhi hadalkaas u yaabay haye waxaad isleedahay nebi maxamed dadka raacay way cabsoonayaan zaman baa iman doona buu nebigu yidhi ataaciina gabadha keligeed awrkeeda fuushan
gabadh keligeed hawdashka awrkeyga ay loogu sameeyey dumarka carbeed lagu qaadi jiray gabadha saaran hawdashkeega halka Ciraaq ugu dambeysay intay ka timaado oo Ciraaq ay soo dhaxmarto oo Shaam ay soo dhaxmarto oo jasiiratul Arabna ay soo dhaxmarto ayay beedka Ilaahay intay ku dawaafto iyadoon Ilaahay mooyaane cid kale aanan magan galaynin ay halkeed iyadoo nabad qabta ku noqon doontaa buu rasuulku yidhi amniga dhici doona buu nabigu u sheegay saxaabiga Adiy ibn Hatim at-Ta'i radiyallahu anhu Ilaahay waxa uu la doonay inuu islaamu hanuuno fadakhala fi diin Illaahi azza wa jalla diintii islaamku soo galay isagii baa ka sheekeeyay oo yidhi laba indhahaygaan ku arkay buu laba indhahaygaan ku arkay gabadh waxaan arkay keligeed khilaafadii Umar ibn Khattab awrkeeda fuushan oo dawaafaysa markaasaan u dhawaado ku idhi walaalay xageed ka soo xajidood ka timiday markaa bay ku tiri Ciraaq ma maqashay haa Ciraaq waliba Kuufa ma maqashay haa halkaasaan ka socdaa bay ku tidhi oo ayaa kula socda Ilaahay uma weeshadaay cid kale ila socotay ma jirto oo dadka soo dhaxmartay siday ahaayeen hooyaday iyo aabahay siday ilaaliyaan si lamida dadkaasna ilaalinayeen bay ku tidhi tii labaadna wuxuu yidhi walaqad kuntu waxaan kamid ahaa maalintii dawladii Furus asxaabu rasuulillaahi ay hilfaha u qaadeen ay ka guulaysteen khazaa'intii Kisra raggii soo saaray baa kamid ahaa buu yidhi labada aniga u soo joogay buu yidhi tasaddaxaadna waa tee zakada marka la soo qaado cid qaadato baahan baa la waayi doonaa wallahi intuu dhaar maray buu yidhi tasaddaxaadna waa la arki doonaa waayo nabi maxamed baa sheegay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam wayna dhacday khilaafadii Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi zakawaadkii markii la soo ururiyay qof baahan baa laga waayay bilaad al-islaam oo dhan wadanada muslimiintu ay haystaan qof baahan oo dawarsanaya oo zakada baahi u keenta ayaa la waayay markaas laga suureeyo la yiri dhaqaalihii uu halka buu maray intaan isticmaalnaa waxa dhalinyarada wali aanan guursan ee daadii ee qaan gaadhay ha loogu dhisaba lagu yiri marka ayakana taasina way dhacday walaalayaal marka diinteena islaamka walaalayaal عزي inay kugu darto mooyaan waxba ka nagu sameeyso hadaan maal qabeen tahay ha ka cabsan diintaada dhaqaalaha gali maxaa yeelay dhaqaalahaaga diintu way ku barakayn hadaad caalim tahay cilmigaaga umada ku anfac cilmigaagaasi diinta iyo dacwadu way ku barakayn hadaad caaqilto sultaan tahay umada aad sultaanka u tahay ilaahay xaqiisa u soo jeedi xaqa rasuulka u soo jeedi waxaad ku talinaysaa han noqdaan waxa ilaahay rasuulku ay raali ka yihiin ummadaada meel kale ha u hogaamin jariir bin abdullah al-bajali ogaas buuha saad bin muaad ogaas buuha ogaasyadaasi dadkii ay ka dhasheen intay soo qaadeen bay ilaahay rasuulkiisa u keeneen taariikh bayna adduunka kaga tageen adduunyada qof kastoo inaka naga mid ah oo dhiman warwaari meesida war ha ka haro bini aadamku noloshoodu taariikh bay samaysaa adduunka ama taariikh fiican baa ka gali doonta ama taariikh xun baa inaga gali doontee haddaan doonayna taariikh fiican inay naga gasho waa inaan diinteena islaamka kor u qaadnaa insha Allah dhahada waxa iga dardaarana hadallada culimadu halka ay noogu soo jeedinayaana dhaqan hanu badilno yaanan ka dhigin dhagtan ka maqalo dhagta kale ka sii daamay waxa noqotaa wixii culimada aad ka maqasho waa inaan noloshaada ku dabaqdaa ilaahayna ha ka wada cabsano amni iimaankana Allah inoo ziyaadiyo diinta taacadana Allah inoo macaaneeyo dad walaalaheen oo xanuunsanayna way jiraan oo duca dalbaday qofkii naga buka Allah caafiyo wixii cidii kurbeysana kurbada Allah ka qaado muslimiinta meel ay joogaan muwaafiqiin midnimana Allah siiyo dhalinyaradena wiilaliya gabdhaha Allah inoo hadeeyo muslimiinta mustadcafiinta ee Gaza lagu leenayo Allah u gargaaro yahuudiya wixii la socdana Allah inaga qabto Allah